السلام عليكم أصحابتا meel kasta aad joogtaan soo dhawaada waxaan aad ugu mahad celinayaa allihii noo fududeeyey inaan idin soo diyaariyo muuqaalkan intaas ka bacdi waxaan maanta halkan inoogu soo gudbinayaa mowduuc run ahaantii aad u muhiima mowduucan insha Allah waxaynu ku eegaynaa dhowr qodob oo ku saabsan faa'iidada wax akhriska ama haddaynu si kale u dhigno qofka bini'aadamka markuu wax akhriyo faa'iidada uu ka helayo wax akhriska haddaba haddaad nagu cusub tahay daawade ha ilaawin inaad subscribe saarto kanaalkeena soo dhawaada asxaabta marka ugu horeysa asxaabta waa inaynu istafahanaa akhriska muxuu yahay akhrisku akhrisku waa quudinta iyo kobcinta maskaxda kor u qaadida iyo qiimeynta maskaxda haddaba muhiimadda akhrisku wuxuu Ilaahay dhigay maqaan aad u sareysa isagoo u doortay soddonka jis ee quraanku ka kooban yahay ereyga ugu soo horeeyay uu noqdo iqra ereygaas oo nabigeenu suuban sallallahu alayhi wasallam lagu amrayo inuu wax akhriyo waqtigaas nabigu sallallahu alayhi wasallam wuxuu ahaa ummi macnaheedu waxa weeye waxba ma akhrin jirin nabigu sallallahu alayhi wasallam taas Ilaahay wuxuu ka lahaa xeel dheer oo lagu tusinayo muhiimadda akhriska saas daraadeed dadka wax akhriya waa dad ka cimri dheer dadka kale waxay taariikh iyo fikrado ka hayaan dadkii boqolaal sano ka horeeyay waxayna taariikh iyo fikrado fiican uga tagaan dadka kan dambeeya iyagoo u reeba qoraal fiican maadaama mowduucani aad u ballaaran yahay waxaynu wax ka taaban doonaa faa'iidada akhriska faa'iidada koowaad ee wax akhrintu waa ilaalinta waqtigu waa shay aad u qaaliya waana wax kaliya ee aan dib u soo noqonayn in la ilaaliyo lagana faa'iideysta waa muhiim qof walbo guuleysta if iyo aakhiro waa qofka xisaabiya waqtigiisa akhriskuna waa shayga ugu fiican ee waqtiga lagu ilaaliyo faa'iidada labaad waa ka fogaanta dambiyada waqtiga aad wax akhriso waxaad ka dheeraanaysaa dambiyada sida xanta filimada hadallada bila macniga beenta iyo aflagaadeynta dadka iyo wixii kale la mid ah faa'iidada saddexaad ee aan kaga baxayo mowduuceenu wuxuu yahay cilmi kororsi waxa kordhaya caqligaaga maskaxdaada iyo waayo aragnimo buuxda oo aad ka helisid waxaad kale helaysaa fikrado cusub oo nolosha dadkii hore iyo dabeecadaha nolosha dadkood wax ka baratid intaas waxa kaga baxaynaa mowduuceennii fadlan haddaad nagu cusub tahay subscribe haddii kalena sii share garee السلام عليكم ورحمة الله وبركاته